Assalaamu calaykum. Biganahan mashruuci la dagaalanka nuurka waxa uu baraarujin u yahay ummadda Soomaalida sida diintooda iyo dhaqankooda duulaan loogu yahay ee loo doonayo in la burburiyo. U daawashada muuqaaladan si taxane ah waxaad ku baran doontaa sida ay dunidu u shaqayso. Waxaanad si la yaab leh u aqoonsan doontaa dunida ka qarsoon. Maskaxdaadana waxay kaga tagi doonaan xasuuso iyo raadad maguuraan ah. mashruucani si maalinle ah ayuu u dhacaa. waxa aan safar gaaban ku yimid magaalada London anigoo u socda ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah. 3 cisho markaan joogay ayaa uu ila soo hadlay nin ka tirsan urur kamid ah kuwa sida qarsoodiga ah u shaqeeya. wuxuu igu ballamiyay maqaaxi ku taal South Kingston oo la yiraahdo Gales Bakery. waan imid anigoo warwar yar igu jiro oo isweydiinaya wuxuu iga rabo. markaan cabaar fadhiyay ee bun iyo mamacaan meesha ka cunay kolba saacada hoosta ka eegayo waxa si kedisa ii soo dul istaagay nin cad. wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo ii qaaday hotel. waan soo raacay gaarigii oo wuxuu i keenay hotelka Riverbank oo ku yaala bartamaha London. qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran igu soo dhaweeyay hotelka. waxa uu ii kaxeeyay qolka albaabkiisa ay ku qornayd 322. qolka markii aan galay ayaan sariirta ku dul arkay suud madow, shaadh madow iyo kaba madow. waan maydhay sidii la ii tilmaamay ayaan dharkii madoobaa ku labistay. cabaar ayaan daawanayay London Eye oo toos ugu beegan daaqada aqalka aan ku jiro. waa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London, talxiisayaal badanna ay joogaan. garaac xoogan ayaa albaabka la igu tumay. haddana waa la iska furay anoo yaaban ayuu igu yidhi, mudane waxaa bilaabmaysa soo dhawayntaadii. waan soo raacay waxauna i fadhiisiyey miis maro madow lagu sharaxay. shaqaaluhuna dhammaan dhar madow ay ku wada labisan yihiin. miiska waxaa saaran khamri cas, waraaq sida saddexagalka u taal oo ay ku qoran tahay Welcome to the Brotherhood. sidoo kale waxaa taala hees magaceedu uu yahay Welcome Home. markiiba gabadh dhar madow xidhan ayaa masraxa soo fuushay. waxayba qaadaysaa hees midhaheedu ay miiskayga saaran yihiin. heeskaas oo ilaab qaaday misana cabsi igu abuuray ayuu mid madow ii yimid isagoo madaxa hoos u fooririnaya ayuu igu yidhi, mudane waa kuu diyaar gaadhigii ku qaadi lahaa. dabaqa hoose hoteelka ayaa la ii geeyey. waxaa igu sugaya gaadhi kala jiidan. markaan gudaha u soo galay waxaan kula kulmay saaxiibkay. waan ku naxay oo waxaan ku idhi, war waa maxay sidani? isna wuxuu igu halceliyey waa adigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee ay codsigaaga 2 jeer ay diideen Club of Rome iyo Scottish Temple. haddana waxaa timid fursad aad isku muujin karto. haddii aad daacad ka noqoto howlaha lagu igmado waxaad heli xubinnimo buuxda. magaalada waan ka sii baxaynaa. waxaan gaadhnay dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabaysa qaabka loo dhisay. saaxiibkay gaadhigii ayuu ku hadhay. ana 2 nin oo xidhan dhar madow oo ay qoortooda suran tahay 3 gees cas ayaa intay garbaha i qabteen ay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qudha ee ka baxaya yahay shamac. waxaa goob madow soo fadhiya nin darajadiisu tahay 33 oo magaciisa uu igu sheegay Paul Milan. waxa uu weydiiyey inaan ku qanacsanahay inaan ku soo biiro ururkooda Dark Marrow. anna hore ayaan ka aqbalay. habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn la igu sameeyey. 3 habeen kadib anigoo sidii meesha ugu jira ayaa Paul waxa uu ii kaxeeyay qol madow. deeto ilays ayaa lagu qabtay gidaarka waxaana la i tusay khariidad madow oo ay cad yihiin 2 meelood. waxa uu weydiiyey Paul, 2dan meelood ee cad miyaad garanaysaa? waxaan ku idhi waa midi waa geeska Afrika, tan kalena waa bariga dhexe. Paul ayaa igu yiri waa dhulka Soomaalida, tan kalena waa Sham. waxa uu raaciyay in khariidadan la sameeyay shirkii Berlin ka dhacay 1884. wuxuu kale ii sheegay arrin argagax igu riday. Paul wuxuu yiri shirkaas waxaa fadhiyay kii samada ka soo dhacay. markuu arkay in aan fahmin ayuu igu micneeyay idinku shaydaan ayaad u taqaaniin. wuxuuna sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shamba ay yihiin 2 nuur ee u baahan in la dagaalamo si qorshahayagu u fulo. markaas ayaa cabsi ugu abuurantay. waxaan jeclaystay inaan halkan imaan. waxaase cod gudaha igala hadlaya igu yiri xog badan aad ogaatida adkayso. cidda ila hadlaysa ma garan ee bari dambe ayaan ogaan doonaa inuu igu shaqaysanayo xog ka awood badan kuwa aan anigu ku biiray. Paul waxa uu dareemay in buuqigu furan yahay. wuxuuna ii sheegay markaan koro salaanka kala sarreynta in cabsidu iga baabi'i doonto laakiin la iga baahan yahay naf u hurid laxaad leh. wuxuu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaali ah oo gudaha ka dagaalama. waqtigan waxaa nagu adkaaday inaan dibadda kala dagaalano. weliba wax walba waxay isbedeli doonaan marka la gaadho December 2016. waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaas wax walba isku bedelayaan. waxaad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda. wuxuu ii sheegay in xog badan oo aan loo sheegin jirin xubnaha Dark Marrow aan nasiib u helay in la ii furo. sirtan waxaa la siin jiray inta darajadooda ugu hooseyso 21. cidda fashilisana xukunkoodu waxa uu ahaa dil. waxa uu igu yiri hadda sixirkii aanu dhulkaas kula dagaalami jirnay waa uu naga istaagay. 2012 waxaa kor u kacay quwadda ruuxda aadamaha oo halis weyn ku haysa qorshe weynaha aanu ku dhaxlayno awoodda dunida. December 2016 marka la gaaro waxaa cirka ka soo muuqanaya xidig cusub oo awood badan. xidigaasi marka uu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasta oo aanu ku leelnahay dhulka Soomaalida.
dagaalkii hore ee noo qorshaysnaa waanu fulin doonaa inta aan la gaarin 2016 dhulka Soomaalida waxaynu u qorshaynay in 5 maamul loo qaybiyo waxa sidoo kale ku 884 aanu miiska soo dhignay in marka la gaaro 2020 aanu dhulka Soomaalida ka sameeyno 10 dawladood oo mid kasta midka kale cadu ku tahay halkaas markuu marinaya ayuu joojiyay hadalkii waxaanu ay sheegay in xogta inta hadhay la siin doono markaan fuliyo hawlgalka koowaad ee qorshaha gacanta la iga saaray qolkii mudooba ayaa iga soo saaray waxaanu ay keenay qol dhiig ka urayo biyo ayuu madaxa igaga shubay waxaanan markii koowaad u soo dhoofay dalkayga anigoo cadow ku ah 22 July 2017 ayaan ka soo degay madaarka Hargeysa cabsi ayaa soo dabooshay qalbigayga waxaas ay hore igu sii sheegeen wadanku inaanu lahayn sirdoon difaaca qolada qure ee la iga dardaaray inaan ka feejignaado waa qolo wadanka ilaalisa oo suuq iska joogta dadkuna aanay aqoon awoodooda iyo wajiyadoodaba judhiba laba guri ayaan ka kareystay masalaha iyo jigjiga yar waa laba xaafad oo aad hawlahaaga si fiican ugu fushan karto waxaan ku tala jiray inaan hantiyo dhalinyar badan oo gabdho iyo wiilalba leh waxaan ku kasbanayaa lacag iyo indhasarcaad mustaqbal qurux badan ayaan u sawiraa labadaas gurina kulan ayaan ugu qabtaa hawlihii oo meel fiican ii maraya ayaa la ila soo hadlay waxaana laygu amray inaan tago gobolka Sanaag oo aan fuulo buurta cirshiida labada habeenimo ayaan fuulay subaxii ayay fariin ii soo direen oo yiraahdeen xalay waxaad fuushay buurta sida sirta wadankaas waxaase la ii faray in aan degdeg uga soo baxo dalka oo noloshaydu khatar ku jirto taa dhacdaalo markaan maraya ayuu nin cawlan ii joojiyay buurta hoosteeda waxa uu igu yiri kuwa ku soo diray Sanaag ayaa awoodoodu ku idlaatay hadaad mar dambe timaadana waad eedi haddana fariinta gaarsi walaalahaaga madow cabsi ayaa igu dhacday waanan baqay ilaa aan ka degay madaarka Heathrow Paul Millan ayaan ku booqday xaruntii ururka si diiran ayuu ii qaabilay wuxuu ii sheegay in aan gaaray meel ay iyagu ka baqaan wuxuuna ku daray in ay Sanaag qorshe ka leeyihiin haddana waxaan kuu furayaa bog kale oo sir ah wuxuu yiri intaan ku mashquulsanayn dagaalkii Ciraaq halkan waxaa laga taagay calan tawxiid leh waa calanka Soomaaliland waana garaweynay halka inaga hoos martay 1998 ayaanu ogaanay in awood halka ka soo baxayso arrintan ayaa ka wada hadleen Mareykanka Ingiriiska iyo Israa'iil waxay yiraahdeen hadda aan la dagaalano Mareykankuna waxa uu yiri aan eegno sida ay u soo baxayso awooddaasi haddana waanu garan laanahay si aanu yeelno wuxuu iigu daray in ay ciidamo geyn doonaan badacas iyagoo abuuraya budhcadbadeed ay ka dhigtaan foodsaare iyo sabab ay ciidamadooda ku keenaan badda waxaanse arkayaa qorshihii oo u fulayay sidii bool iigu sheegay taas waxaa ka daran in ay maanta socoto wixii uu si cad iigu sheegay 2016 in ay Soomaaliland ka soo weerari doonaan dhinaca bari waxaa iluray in aan ogaado sababta uu rabo dagaalka bari anoo aad mooday in jiirku isii damqayo waxaan ku iri maxay ilaa xadka muhiim idinku tahay inaad weerarkan qaadaan bool isagoo aan ii jawaabin ayaa u eegay ergey kale wuxuu igu yiri walaal beeg ayaa ku furi doona bogaas beeg ayaa qaatay hadalkii wuxuu yiri waxaan ka fikiraynaa in aanu isku beegno qaska Sanaag iyo qabsashada Qudus waxaan se weydiiyay waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Sanaag iyo Qudus waxa uu ii sheegay markii uu horeysay dunidan inay ku guuleysay faafinta jahliga iyo qarinta cilmiga dhabta ah qaar badan PhD Masar ayaanu dhabarka kaga qornay haddana cilmiga runta ah waanu ka qadinay way yar yihiin cid taqaana cilmiga sida dhacdooyinka dhulku isku saameeyaan iyo muhiimadda dhuleed ee ka dhaxaysa Sanaag iyo Qudus qoladan muslimka waxa loo sii sheegay in marka ay caamiranto Qudus iyo Yathrib waa Madiine ay xidhmayso sirtan waxa haya in yar oo kamid ah dadka awoodda laga ilaaliyo Paul Millan ayaa ku soo noqday isagoo wardoonkayga ka jecel inaan amaradiisa qaato wuxuu igu yiri dhawaan ayaa dalkii ku noqonaysaa waxaanu ku boqri doonaa mataan degdeg ayaanu u rabnaa in aan beerno midho aynu mustaqbalka dhow goosano si aad u sumaysaan quluubahan maran waa inaad adeegsataa qalabkan aan ku siiyey waxa uu igu yiri markaad doonayso inaad biiso dalaga beeraha shinnida ayaa la bedelaa markaad doonayso inaad xumayso hawo fikirka wanaagsanna waxa dadku akhrinaya ayaa la abuuraa xigmaaw shiinaysa ayaa laga hayaa haddii qorshahaagu yahay 1 sano bariis beer haddii uu yahay 10 sanana dhir beer haddiise uu yahay 100 sano carruur waxbar annagana qorshahayna eriyay waa ka duwan yahay taas waxaanu ka cararnaa ceedda galbeed ka soo baxaysa oo aan la garanayn goor ay dilaaci waxa gabi ahaan isbedelay 2012 qorshe 300 sano noo soo shaqeeyay way adag tahay in aan maamulno xitaa doqmihii wax walba waxay u shaqeynayaan si lid nagu ah mana garanayno sida ay wax u dhacayaan waxa aan dalka ka soo degay anigoo sita buug badan oo falsafad ah Assalaamu calaykum waxaan dalka ka soo degay anigoo sita buug badan oo falsafad ah kulamadii oo halkooda ka sii socday ayaan u qaybiyay buugtii dhalinyaro dhowr ah waxaana ku idhaahdaa erayo beer laxawsi ah oo aan qalbigooda ku xado waxaan dareemaa in ay qabgelisay waxaanse ogahay kuwa gashada kabaha falsafadda iyagoon aqoon fiican u lahayn
in ay galaan mugdi. Markii ugu horreysay qolo aan dalka ka bixin ayaa baraha bulshada ku soo qortay erayo ceebayn ku ah asalka diinta Islaamka, waxaana shaki geliyeen iimaankooda. Arrintaas ururku si weyn ayuu igu hambaliyeeyay. Paul ayaa ii soo qoray fariin gaaban oo aanu wada fahmin. Waxay u qornay sida tan: waxaa la gaadhay waqtigii uu soo bixi lahaa boqorkii qarsoonaa. Fariintan markaan akhriyay ayaanoo arkaya ismasaxday iyadoo gubanaysa. Argagax iyo cabsi ayaan dareemay, wadnahayguna wuu gariiray. Waxaan weydiiyey waxa fariintaas gubay. waxa uu sheegay inay jinka heshiis kula jiraan oo ay arrimo badan ka wada shaqeeyaan. Qabiilooyin kala duwan ayay leeyihiin. Hadda reerka noo qaabilsan internetka waxaa la yiraahdaa Zilaa. halkaas markuu maraya ayuu ismaray oo ka cadhooday inuu si taas dhex galo. waxaan la xidhiidhay koonfurta anigoo doonaya in mashruuca uu ku sii faafo dhulka Soomaalida degto. Muqdisho hawsheeda wiil yar ayaan u diray ayaan ku uri Paul. waxauna igu yiri Muqdisho waxaan u naqaanaa Fitzy City. markaa wakiilo badan ayaa inoo jooga halkaa. kadib halkaa ayaan kaga hadhay. waxaan ogaaday inaan keli ku ahayn dagaalka dahsoon. maalintii dambe anigoo hotel cunto ka cunaya ayaa nin baahan uu soo dul istaagay. waxba ma haya ayaan ku uri. waxa uu igu yiri waxba ma haysid oo waa la hubaaye. Muqdisho waxaa loogu magac daray Ismaaciil Maqaadishi. waa nin awliyo reer Isxaaq ah. hawlihiinina waa fashil. naxdin ayaan qaaday. cuntadii waa iga degi weyday. habeenkii ma aan seexan. waxaan garwaaqsaday in ay jirto cid og tallaabo kastoon qaadno. subaxii ayaan dalbaday wastaad laban ku xaniba daaqadaha guriga aan ka deganahay Hargeysa. waxaanse ka cawday in aanan ku noolaan karin cabsi joogto ah. Paul waxa uu igu qanciyay oo uu igu dejiyay in ay dhowaan dalka keeni doonaan ciidan difaaca danaha iyaga iyo wakiilada qarsoon ee noo adeega. waan ku niyad samaaday ballanqaadkaas, hase yeeshee waxaan mar walba ku noolaa cabsi iyo warwar joogto ah. fariin ayaa la igu soo diray inaan gabadh ka soo qaado madaarka. gabadhu ma aha mid ka tirsan ururka, laakiin waxay iigu sheegeen in ay tahay kuwa taabacsan mabaadi'da aanu aaminsannahay. subaxii ayaan soo qaaday gabadh xijaaban oo ay ka muuqato dhowrsanaan. waxaa isku ka qaban weyday muuqeeda iyo waxa la ii sheegay. waxaan ka warsaday sababta ay u timid dalka. waxayna ii sheegtay inay ka qayb galayso kulan samafal ah, iyadoo ay casuuntay hay'ad ka mid ah kuwa qaramada midoobay. kulankii ayay ka qayb gashay iyadoo aan u fahmay in la doonayo inay hablaha tusaale u noqoto. kulamo hoose ayaa loogu sii ballamiyey inay la qaadato hablo gaar ah. markay howlaheedii dhammaysay ayaynu habeenkii casho la qaadanay islaan cad oo madaxa hay'adda ah. iyadoo dhaqankeedii beddesha ayay farxad isku qaabileen islaantii. anigu waan daawanayaa siday iskula jaan qaadayaan. waxaanse madax wareer ka qaaday oo igu weynaatay. waxaa ka soo baxay afka gabadha. si toos ah ay afka ugu ballaadhisay iyadoo islaantii ku leh aan kuu bishaareeyo. islaantii ayaa ku halcelisay iga farxi. waxay ku tiri bishaarayso. hadda kadib jiilkani khatar inaguma aha. waxay sii raacisay in ay hayso oo ay farta ka saariso xogtii laga ururiyey internetka oo caddaynaysa inay kor u kacday ilaa xad dhalinyarta daawata aflaanta xunxun. micnaha aflaanta jinsiga. fajiciso ayaa igu dhacday oo waxaan garwaaqsaday in jiil dhan nuurkii qalbiga ay madoobaysay daawashada xumaanta iyo sinada lagu faafiyo internetka. Kenya ayaan isku raacnay subaxii xigay. markay gabadhii Nairobi gaadhay waxay la soo baxday dhaqan cusub oo ahaa kii aan ka malaysanayay. maryihii ayay suurtay oo intay sidii hablaha reer galbeedka u labisatay ayay dhex gashay qolo gaala ah oo badan. anigu Nairobi wax badan kuma hakan. waxaan u sii dhaafay Lisbon oo laygu soo casuumay shir qarsoon oo lagu arriminayo siday u ekaan doonto mustaqbalka siyaasadda Soomaalidu. shirkii waxaan kula kulmay Berge oo ahaa shakhsiga gudoomiyaha howlaha la hayo. waxay isla soo qaadeen sidii Soomaalida loogu sameyn lahaa nidaam federaal oo sii murgiya mushkiladaha hadda ka dhex dabaalanayso. sidoo kale waxay tuseen in federaalku uu yahay habka ay ku joojin karaan calanka tawxiidka leh ee ay reer Somaliland saarteen. waxay yiraahdeen calankaas ayaynu ku dul dhisaynaa calanka buluuga. qolo xaq jir ah ayaa ku dooday in Soomaalida laga qaado xaqa ay ka tashiga oo gacanta loo geliyo UN-ta ama wadamada jaarka. markuu shirkii dhamaaday waxaa la isla qaatay in Soomaalida loo sameeyo nidaam federaal oo qas ku salaysan. Berge ayaa si gooni ah igu sheegay in ay meel dhigteen go'aanka ah in Soomaalida laga ilaaliyo labo. kow, in ay Soomaalidu isku maamusho shareecada Islaamka. laba, in Soomaalidu yeelato dawlad dhexe oo adag. wuxuu Berge aaminsan yahay in haddii Soomaalidu ay qaadato shareecada Islaamka in ay dhibaatooyinka oo dhammi ay u milmi doonaan sida cusbada ugu milanto biyaha. sidoo kale waxa ay helayaan midnimo taasoo siinaysa quwad iyo sharaf. sideen u aqbali karnaa in dhulka khayraadka intaas leeg lihi inuu gacan u galo cid naga mabda' duwan? way ku jiraan Soomaalida rag leh hamiga ay ku yagleelaan dawlad dastuurkeedu yahay Qur'aanka. waxaanse ka xignaa dagaal. wuxuuna yidhi waxaan nahay qoom wax akhriya oo wax darsa. quraanka ayaanu baarnay waxaanu ka helnay sir suuradda 2 aayadda 120 taasoon kala baxnay in haddaan Soomaalida ku qancino inay raacaan nidaamkayaga
ay waayayaan gargaarka iyo guusha Alle markaanu taageerayno doorashooyinka Soomaaliland iyo hirgelinta federaalka nagama aha jacayl ee waxay naga tahay inaanu kala dhexgalno iyagii rabigooda u gargaari lahaa beeg ayaa wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay inay Soomaaliland federaalka ku dirqin doonaan marar dambe oo iskaga dab qaaday London Hargeysa Ankara iyo Nairobi ayaan ogaaday in kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda waaxda Afrika John Carson in laga codsaday in uu madaxweyne Obama ku qanciyo in Soomaaliland lagu daro ciyaarta federaalka waxa la unkay guddi uu hogaaminayo Senator Donald Bailey oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee odayada wuxuu soo casuumay dhammaan darafyada Soomaalida waxaase shirkaas diiday oo ku gacansay Riyaale si kasta oo loo dadaalay haddana rabitaanka federaalku si wacan ugama hirgelin Soomaaliland waxaanu garan weynay waxa hortaagan qoladayaduse waxay tuhansan yihiin inay halkan ka taliso awood qarsoon oo tooda ka xoog iyo xeelad badan si kadis ah ayaa laygu diray inaan hawl ka soo fuliyo Kampala waxaa la doonayay in lagu qanciyo dhalinyarta wax ka baratay Uganda sidii ay ugu biiri lahaayeen ciidamo loo dhisayo Soomaaliya waxaan fadhiistay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Kisinya si aan uga ogaarsado dhalinyar han leh oo aan ciyaarta soo geliyo dhalinyar badan kuma niyad samayn in ay fikirka ila qaataan ujeedka iyo qorshaha waxa uu ahaa in la helo 500 oo wiil ama ugu yaraan 200 isku aragti ah loona layliyo saraakiil ciidan oo markii loo baahdo dalka xukunkiisa qabsan kara si looga sii xijaabto Shiinaha oo farakulul kula jira geeska ama uu balaanbi qorshabi ugu noqdo madaxda maqaasarka ee Soomaalida koonfureed haddii ay ka leexdaan jidka loo jeexay waan ka soo dhoofay anigoo ku hungoobay isku dayaygii inkastoo aan hawsha kali ku ahayn sidoo kale ay dadaalo kuwan la mid ah ka socdaan Djibouti Ethiopia iyo Suudaan mar dambe ay gabadh afhayeen u ahayd wasaaradda dibadda Mareykanka ay shaacisay in lagu guuleystay qorshe Soomaalida loogu dhisay ciidamo xirfad leh waxa lagu soo hambeliyay sida hagar la'aanta hayeen u wada hawlaha ururka iyadoo lagu bishaareeyay in la isiin doono mashruuca qaybtiisa hore ay ku baxayso lacag $5 milyan sanadkiiba wuxuu socon doonaa ilaa 2022 2.5 milyan Hargeysa ayaa lagaga hawlgali doonaa 1.2 waxa lagaga hawlgali doonaa Muqdisho halka 2.5 milyan lagaga hawlgali doono Garowe Paul waxa uu iga rabaa in Soomaalida laga meedho diin jacaylka waxa uu yiri Soomaalidu dad diintooda difaaca xataa iyagoo aan ku dhaqmin dadka dhaqankaas leh way adag tahay in laga lib keeno mashruucu waa inuu tallaabo u tirtiraa dhaqankaas wanaagsan waxaanu xoramo ka furanay Hargeysa Muqdisho iyo Garowe dadka dhulkaas ku noolna ma dareensana waxa aan una limid waxaanay noo soo dhaweeyeen sidii dad soo kordhiyay curin cusub markii hore waxaanu doonaynay inaanu bixino mashruuca maanfur bulsho hayeeshee magac bixintaas markii aanu u dirnay ururkii way naga diideen oo waxay sheegeen inay kicin karto dad badan oo sas ka qaba soo dhoofinta wax kasta oo cusub waxay nagula taliyeen in aanu ula baxno geediga bulshasan waxay yiraahdeen ereygan bulshasan ay ku qanci doonaan oo waxay u qaadan doonaan inaad wanaagooda wadaan hayeeshee qolo wax isweydiin badan ayaa su'aal ka keenay geediga xagee dadkan loo rarayaa ayay odhan waxaad ku tiraadaan xaggasan goortay ogaadaan waa mar aynu fushanay danteena sanadkii koowaad ayaynu qabanay hawshii u horeysay oo ay si weyn bulshadu u soo dhaweysay lacagta waxaa loo soo mariyay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah waxay doonayaan in bulshada loo sii bisleeyo siday u aqbali lahaayeen khaniisnimada qoomuluudka lixaadka iyo dhaqan kasta oo bidix Soomaalidu se dhaqamada bidix ma aqbali karaan oo dil bay ka xigaan kaas ayaa la rabaa in la ogoleysiiyo oo ay caadi u arkaan mar baan isiri weydii madaxdii aad u shaqaynaysay su'aal ahayd miyaa Soomaalida lala ganacsan karin iyadoo la bedelin dhaqankooda ma weydiin mar dambe ayaan ogaaday in ay qayb ka tahay nidaamkooda meel lama maalgeliyaan ilaa ay dhaqan dooriyaan waxaan hoos nafta ugu sheegay malaha Shiinaha ayaa ku wandhaama Shiinuhu maalgelinta uu bixinayo shuruudo dhaqan kuma xidho xagga dhismaha kaabayaasha dhaqaale iyaga uga wanaagsan Afrika marka reer galbeedka laga barbar dhigo Shiinuhu hal in ayuu leeyahay taas oo ah inaanu lahayn awood ciidan oo ku difaaci karo danihiisa iyo danaha dawladaha soo dhaweysta London ayaan u sii dhaafay oo ku sii qaatay bil nasasho ah markaan soo dhoofay ayaa cagti soo geliyay xaruntii ururka waxay gula kaftameen in Soomaalidu tahay dad adkaysi badan oo asal ahaan ay adag tahay in la bedelo wuxuu ii sheegay in waqtigii gumaystuhu yimid Afrika oo inteeda badan muslim tahay haddana si dhib yar leh ayaan u doorinay ayuu yiri Soomaalidana dhowr qof mooye waan ku guul dareysanay inaan dhaqankooda ka kaxayno kulamo hoose ayaan ugu diyaarnaa in ay dhalinyarta kula hadlaan waxaanu u jeedinaa hadallo u badan dhiirigelin ay dhalinyartu ku farayaan in ay jabiyaan derbiga dhaqanka iyo waxa ay ugu yeedhaan dib u socodnimada waxay ku beer laxawsadaan maskax furnaada oo aqbala waxa cusub qof 2 ilaa 3 waanu doorinay ilaa hadda waxa saxaati ka taaganahay dhowr wadaad beeg ayaan habeenkii dambe ka helay isagoo ku jira bartiisa Skype cabaar ayaanu isxaal wareysanay markii dambe ayaan u sheegay waxa naga haysta wadaado caqabad ku ah mashruucayaga beeg isma dhibine waxa uu igu yiri
assalaamu calaykum. Beej ayaan habeenkii dambe ka helay isagoo ku jira bartiisa Skype-ka. Cabaar ayaanu isxaal wareysanay. Markii dambe ayaan u sheegay waxa naga haysta wadaadda caqabad ku ah mashruuca. Beej isma iguna dhibine waxa uu igu yiri kuwa laambadoodii way baqtiday ee ka baqan. Waxa uu yiri waxaan nahay qoom sahan dirta marka ay dan leeyihiin iyo markasta oo ay dal ku duulayaan. Waqtigii aanu qorshaysanay in aanu dumino khilaafada Islaamka ayaanu sahan u dirnay nin oday ah oo caqli badan. Wuxuu safar ugu baxay caasimadda Islaamka ee Qunustandiniya. intii uu magaalada gelin ayaa uu la kulmay carruur badan oo duleedka magaalada u joogta tartan. Mid ooyaya ayuu ku yidhi adeer maxaa kugu dhacay oo aad la ooyeysaa. Waxa uu ugu jawaabay 10 leeb ayaan ganay oo mid ayaan la waayay halkii aan shiishayay. Odagii waxa uu ku yidhi 9 baad la heshee maxaa kaa oohinaya. wiilkii yaraa ee muslimka ah ayaa waxa uu ku yidhi gamuunka 10aad la waayay waxa ku badbaadaya cadowga Islaamka, taas baan la ilmaynayaa. halkiibuu odagii sahanka ahaa ka soo noqday oo u sheegay inaanay dhaweyn xilligii la qabsan lahaa khilaafada Islaamka. isla odaygaasi waqti dambe ayuu soo noqday sidiisa lamid ah ayuu arkay wiil yar oo ooyaya. markuu weydiiyey waxa uu la ilmeynayay wiilkii waxa uu sheegay inuu waayay gabadh uu jeclaa. markaas ayuu sahankii noo sheegay in la gaadhay waqtigii la dumin lahaa khilaafada Islaamka. sidii baana ku burburinay ilaa magaceedii cid soo qaada la waayay. wuxuu iigu daray in waqti dhaweyd koox gaala ah ay ku sheegeen culimo islaam ah waxay soo mariyeen dhowr waddan oo islaam ah cid garatana way waayeen. markaas ayaanu garanay inay bakhtiday laambadii dunida islaamka u baxaysay. hadda way lacag jecel yihiin oo wax badan oo saamayn ah ma lahan ayuu igu yidhi ee ha u joojin. waxaan weydiiyey bal inuu kuwii hore iiga warramo. beej waxa uu igu yidhi wakhtiga ayaa igu yaray nimankaas waa xoog aan ka nasan weynay. wakhti ayaanu doonay inaannu sixir ku soo aasino Masar. diyaaraddii siday sixirka ayaa si lama filaahna ugu dhacday saxaraha Sinaai. waanu garan weynay waxa soo riday. 30 sano kadib annagoo dhacdadaas baadhayna ayaa magaalada Sharm el-Sheikh uu nin kuwa hore ka mid ah uu noogu sheegay inuu diyaaradda soo riday wadaad Soomaali ah oo dacadiisa kaga adkaaday sharkii aanu wadnay. wuxuu beej sidoo kale ii xaqiijiyey in ururka dhexdiisa ay kor u kaceen awoodaha xubnaha xajirka ah ee doonaya in aanu Soomaaliya la wareegno 2020ka. waxa uu yidhi Ordigan ayaa 2011kii shimbir u noqday Soomaalida isagoo si fudud u kala daadiyay qorshihii degsanaa. haddase damca lagu doonayay in Soomaaliya dib loogu qabsado rag cadhaysan baa miiska soo saaray. waxa ay doonayaan in ay dunida tusaan in Soomaalidu soo celin kari weyday amnigii oo ay hanan weyday dawladnimadii, sidaana lagu qanciyo ummadaha ilbaxa ah in Soomaalidu isku talin weyday ay habboon tahayna in loo taliyo. 60,000 oo askari oo UN-ta ah ayaa hawsha loo diyaarinayaa. marka loo baahdo in qorshaha la fuliyo waxaa ka qayb qaadanaya Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska. waa markii ugu horreysay ee ururka guul la taabto ka gaadhay hawlgalladii dhaqan ee aan gudaha ka fulinay. madaxii ururka ayaa igu soo hambeliyey sida hawlkarnimada iyo nafuridda leh in u dhaqaajiyay hawlo 80 sano u taagnaa gacan gudeed. Bool ayaa sidoo kale ii fidiyay casuumaad mahadnaq iyo maamuusid isugu jirta oo la igu qaban qaabiyay jasiirad ku taal Caribbean-ka. anoo farxad iyo qabiis siyaaday ayaan u soo dhoofay jasiiraddii lagu casuumay. Addis Ababa ayaan sii maray. waxaan muddo saacad ah aan ku hakaday Dubai, halkaas oo aan kulan kula qaatay ergey uu beerji igu soo xidhay. ergeygaas oo magaciisu ahaa Sir William Don ayaa isagu isugu kay sheegay inuu ka tirsan yahay oo madaxna u yahay waaxda dhaqanka Misulte oo ah shirkad khubro ah oo qaadata qandaraasada lagu dadgedinayo deegaanada laga helo saliidda qaydhin oo ay Soomaalida qudheedu ka mid tahay. Sir William waxa uu sheegay inay heleen qandaraas dahabi ah oo la doonayo in laga fuliyo dhulka Soomaalida inta aan la gaadhin xilliga la qoondeynay in la soo saaro shidaalka Soomaaliya ee 2024ka. waxa uu sheegay in isaga iyo aniga ayna midayso hal yool oo mid ah laakiin inoogu kala suntan mabda iyo manfac. waxa uu igu yidhi adiga waxa ka shaqaysiinaya waa mabda aad aaminsan tahay oo aad la wadaagto walaalahaaga Dhaak Maarow, halka annagoo aanu wadno damaca saliidda qaydhin ee ceegaagta carrada Soomaalida. waxa uu siiyey aqoonsigiisii waanu iga tegey isagoo ii sheegay in mashruuca qiimaynta wejigiisa hore uu bilaabmayo sanad kadib. waxaan sii watay safarkaygii aan ku beegsanayay jasiiradda Barbados. diyaaraddu waxay ka duulaysay joog sare. hadba kursiga diyaaradda anoo iskala bixinaya ayaa gabadh qurxoon oo ku labisan dharka hablaha adeegtooyinka ah ayaa waxa igu tiri mudane u toosaadoo mahadsan hadiyad ay ka soo direen walaalaha Dhaak Maarow. markaan madaxa kar u soo qaadeen si degdeg ah ayaan u arkay gabadha la cadaynaysa oo ila dul taagan xeedho cad oo dul yaalo ubax cas, midi iyo buug yar oo madow. waan ka gudoomay. waxaan ku uri yaa ka soo dhiibay. waxay tiri walaalaha. waan ku warceliyay anigoo doonaya inaan ka xaqiijiyo shakhsiga siday. waxay igu tiri Lawrence. waxaan sii weydiiyey waa kuma Lawrence. waxay tiri waa kabtanka duuliyaha koobaad ee diyaaraddan aad saaran tahay. su'aal dambe ma weydiin oo anoo aan fariirsan ayaan ku uri waad mahadsan tihiin labadiinuba. markay tagtay waxaa agtayda soo fadhiistay nin dhar madow iyo muraayad madow xidhan oo ah dhalinyaro xooggan oo muuqiisa aanad garan karin inuu 40 jir yahay iyo inuu ka weyn yahay. markii hore waxaan keli ku ahaa
qaybta VIP-da diyaaradda oo badanaa leh 4 ilaa 6 kursi oo dad khaas ah loogu talagalay. ninkan iyo xaaladda iga soo biirtay wajigayga way bedeleen. buuggii ayaan furay anoo cabsiya argagax nafsadeed dareemaya. bogga koowaad waxaa ku taal magaca ururka waa Dark Marrow oo ay hoos taal sumadooda maska iyo lafta dhuuxa madow u taagan oo isku tallaab ah. bogga labaad ayaan u dhaafay, waxaa ku qoran Blood Brothers oo farcas oo sida dhiigga da'aya u qoran. waxaa sii korodhay cabsidii aan qabay, iyadoo ay korodhay neefta iga gurmaysa iyo garaaca wadnahayga oo xoog u shaqaynaya. ninkii kursiga agteeda fadhiyay ayaa igu yidhi aad baad u naftuuraysaaye, waxaa jirta dhibaato. wuxuu sii raaciyey ii sheeg aan ku caawiye. tallayaabka lahayd ayaa ah inuu hadalka iigu sii daray, waxaan agtaada u fadhiyaa inaan ku caawiyo. anoo qarsan la cabsida ayaan ku idhi mudane wax walba way wanaagsan yihiin. wuu sii jeestay, anna buuggii ayaan soo rogay. bogga saddexaad oo ay ku qoran tahay hambalyo. waxaa maskaxdayda ilbiriqsiga ku wareegayey, waxay kugu hambalyeynayaan guushii aad gudaha ka gaadhay. waxaan doonay in aan sii ogaado sababta si degdeg ah ayaan u soo rogay boggii afraad, mise waxaa ku taalla darajada 3-laatanaad ayaa lagu dalacsiiyey ee degdeg u korsallaanka. intii aanan ka dhammaan boggaas ayaan quumameeyey wixii ciyaartii soo geliyey. waxa ay warwargelisay halista ku xeeran noloshayda iyo jidka qodxaha badan ee aan qaaday oo aanan ogayn waxaan mudan doono. waxaan horay u maqli jiray albaabada qaar haddii la isku furo in aan dib looga noqon ee uu midba midka kale kuu sii dhiibayo ilaa aad gaadho meelo aad noqosho jirin. tii baa hortayda taal oo caawa ii sawiran. boggii shanaad ayaan u sii gudbay. waxaa igaga soo baxday mahadhadan kooban oo u dhignay sida tan: waxaa kuu furmi cilmiga maamulka dhulka hoose iyo raadiinta nafta hoose. kii lixaad ayaan jeedaaliyey. waxaa ku xadhan waxaa lagu siiyey furayaasha wax fududeeya. boggii toddobaad ayaan sii akhriyey anigoo xiise yar iigu jiro. waxaa igaga soo baxday 40 habeed ayaad u soomi sirtan oo aad subagga iyo oonta xoolaad ka dheeraan. naftu jecela in ay ogaato waxa laga qariyey. 8 waxaa ku qoran kelinimo ayaad ku korsanaan buur korkeed. bogga 9aad ayaa lagu muujiyey waxa kuu yimid kaalmayso oo ha kurban. intaas markaan akhriyey ayaa haddana dareenkaygii kacay oo aan laba bogleeyey. ninkii ayaa intuu soo jeestay igu yidhi waxaan diyaaradda u saaranahay in aan kuu kaalmeeyo inaad ka gudubto darajadan dhexe ood fuusho sallaanka sare ee ururka. waxaan ahay walaalkaa Ben Solomon oo darajadiisu tahay 33 kana tirsan Dark Marrow. markaas ayuu wadnihii hoos ii dhacay, isna waxa uu yidhi bool ayaa iga codsaday in aan ku caawiyo, dartaa ayaan uga yimid shaqooyin badan oo aan gacanta ku hayay, adiga ayaana muhiimadda koowaad aan ku siiyey. Solomon ayaa igu yidhi istaji, isagoo garabkay haya ayuu ii sii raaciyey aayar neefso. wuxuu ii bilaabay sheeko isagoo buugyarihii madoobaa iga qaaday. si fudud ayaad u koraysaa sallaanka oo aad ku helaysaa darajada. Solomon waxa uu ii sheegay in buugyarahani ka kooban yahay 13 bog, bog kastaana farriin kooban xambaarsan yahay. 21 sano ka hor ayaan darajada dhaafay, waayo waxaan ka soo jeedaa qoyska aasaasay ururkan. adna haddii aad doonaysay inaad guul ka gaadho nolosha, waan ku caawinayaa. guul kastana waxay u baahan tahay sadaqo, in wax loo huro. huridda u weyni waa dhiiggaaga oo aad bixiso. markaad ku qanacdo inaad darajadan gaadho, mindida ayaad ku saraysaa suulkaaga bidix. dhiigga ka yimaada ayaad ku saxeexaysaa bogga 13aad ee buugyarahan, adoo dhex dhigaya ubaxa guduudan oo u taagan jiraha qarsoon. baddaas markuu iila galay ayaan haddana argagaxay. isna sidii uu akhrisanayo naftayda ayuu igala hadlaa. waxaan hoos isku leeyahay waaba sidii qof igu lamaan. beri dambe ayaan ogaan doonaa inuu ka mid ahaa dadka la hadla qareennada hoose. iyadoo ay xaajo igu cakiran tahay ayuu i siiyey fursad aan kaga badbaado qoolkii aan madaxa kula jiray. waxa uu igu yidhi waxaa sharci iyo shuruud noo ah in aan nafta lagu qasbin ama lagu dirqiyin waxaanay diyaar u ahayn. bartaas ayaa Solomon ka codsaday in aan ruuxiyan diyaar u ahayn in aan darajadan koro. isna wuu igu bishaareeyey in la sugayo ilaa waqti aan istaahirinayo. gabadhii cid u yeedhay iyada oo aanay jirin ayay intay soo gashay ay dib u qaaday xeedhadii iyo ubaxii, mindidii iyo buugyarihii ay waday. Solomon waxa uu igu yidhi iska nafisdeeto, waa uu iska baxay. halkii iyo keligay ayaan ahaa ilaa aan ka tegayo caasimadda dalxiiska iyo raaxada loogu tago jasiiradda Barbados ee Bridgetown. si weyn ayaa laygu soo dhoweeyey qaybta martida. waxaa igu sugayay Berj iyo 2 dumar ah oo mid ku sawiran tahay maskaxdayda si aanan aqoonsan markii hore. markay hadashay ayaan aqoonsaday inay ahayd islaantii hay'adda haysatay ee ay gabadhi warbixinta siinaysay. fajiciso ayay igu noqotay islaantii aan ku ogaa hay'addii ee halkan igu soo dhoweynaysa. waxay igu tiri may aqoonsatay, waxaan ahay Laaraa. madaxa ayaan ruxay anigoo aan rabin in ay iga shikido. Berj ayaa si weyn iigu bogaadiyey guusha aan soo hooyey. waxa uu ii raaciyey waa sababta lagu dalacsiiyey ee aad ahayd darajada 21aad laguna gaadhsiiyey darajada 23aad. waan ku farxay ayaan ku idhi anigoo marka igu horraysay been ka sheegaya dareenkayga. markuu Berj igu yidhi ma hubtaa, isagoo dareemaya
in dhoola caddayntayda ay wax ka hoos qarsoon yihiin. Waxa uu igu yidhi dabcan waa rag ku tababaran akhrinta dareennada qarsoon ee dadka badankoodu gadaal ayaan ka ogaan doonaa in ay qareen la hadlaanay. Hudheelka Wayfis ayaa la ii sii qaaday, isna si mug leh ayaa iigu qaabilay. Mid ka mid ah shaqaalaha ayaa ii sheegay inay habeenimo jirto xaflad qoobka ciyaar ah oo aniga laygu maamuusayo. Isagoo si weyn ugu faraxsan ayuu yidhi Rihanna ayaa heesaysa, waa fanaanadii. Haddaan sidaada fursad u heli lahaa waxay noqon lahayd